بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بمهد سكله سبحانه وتعالى إلهي بمهد علينا حالة والبا يظروف كستوتي مادة فالعلن أين كيف العلن إنه دقينتا يهود الصهاينة ضواي كودو دولكا بركيسانة فلسطين كارهان مريكا غزة oo ay rabaan dadka halkaa joogay inay gumaadaan xasuuqaan sidii ay horeba u xasuuqi jireen dadka reer Falastiin oo aanay u naxaynin caruur iyo ciroole iyo oday waayeela iyo islaan iyo mid duqa iyo mid markaa buka iyo mid badqaba intaba aan loo aabayeelaynin oo guryahooda iyagoo aamina ay ku duqaynayaan oo ay madaafiici sawaariikh ay la dhacayaan dhulkoodana ay rabaan inay xoog ku qabsadaan dadka jooga magaaladaasna ay ka qixiyaan oo ay qabsadaan oo ay la wareegaan magaalada Gaza sidii ay ula wareegeen dhulka barakeysan ee Falastiin intiisa badan haddaba sahaynadaas yahuudda ah ayaan rabaa inaan dhowr xalqadood kaga hadlo cidda ay yihiin marka hore aan ka hadlo taariikhdooda iyo adduunka waxay ka yihiin aan ka warramno sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin ee diintu inoo sheegtay subxaana wa tacaala ilaahay nooga warramay ama rasuulkiisu salawaatullaahi wasalaamu calayhi inoo sheekeeyey waxaan kaloo ka warrami doonaa xalaqaad kale qaabka ay yahuuddaasi ku qabsatay dhulka barakaysan ee Falastiin ujeedadooda iyo hadafkooda iyo yoolkoodu halka uu gaadhsiisan yahay maxay Maraykanka iyo reer Yurubku mar walba garab iyo gaashaan ugu yihiin dowladda sahaynada yahuudda arrimahaas ayaynu falanqeynaynaa xalqada koowaad waxaan jeclahay inaan kaga warramo taariikhda yahuudda taariikhdoodii yahuuddu sideedaba waxa loo yaqaanaa reer bani Israa'iil waa nebi ka mid ah nebiyada Ilaahay waana nebi Yacquub weeye calayhi salaam 12 wiil ayuu dhalay Israa'iil isaga loo yaqaanay nebi Yuusuf baa 12 wiil ka mid ahaa iyo 12kii wiil ay walaalaha ahaayeen 12 wiil ay ka soo jeedaan 12 qabiil ee yahuudda loo yaqaano qabiil 13aad oo aan ku abtirsanin ayaa jiray makala maasuuniyad iyadana waxaan ka tilmaami doonaa insha Allah laakiin 12 qabiil ay yahuudi ka soo jeedaa mid kamid ah inamadaas ayaa loo yaqaanay yahuuda ama Juda kaasa markaa magaciisa ay qaateen yahuud siyaasa loogu bixiyay yagaana la baxay alladina haadu kuwii maaragtay yahuudda isu bixiyay waa yaga haddaba nimankaas reer bani Israa'iil intii uu nebi Yuusuf uu noolaaye uu boqorka uu ka ahaa dhulka Masar uu ka ahaa Casiisu Misra waxay ku noolaayeen ciis iyo sharaf ay ku noolaayeen markii nebi Yuusuf uu dhintay calayhi salaam muddo kadib waxa wadanka Masar qabsaday Fircoon oo ahaa nin aad u madax adag riya ayuu ku riyooday riyadaas oo sheegaysa in uu dab ka yimi dhulka Baytul Maqdis-ka masaajidka Qudus oo uuna markaa gubay guryihii Qibtiyiinta ee Masaaridu ay deganay guryihii yahuuddu ay deganayna ka tagay waxaana loogu fasiray inuu dhalan doono wiil ka soo jeeda reer bani Israa'iil oo boqortooyada Fircoon markaa tirtiri doono baabi'in doona wuxuuna go'aan ku gaadhay Fircoon in uu laayo dhammaan wiilasha reer bani Israa'iil u dhalanay isagoo isla ka hortag wiilka markaa boqortooyada burburin doono laakiin Ilaahay wuxuu qadaray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in uu Fircoonkii u leenayay caruurta reer bani Israa'iil si aanu Muuse u dhalanin in Muuse calayhi salaam uu isagu soo koriyo oo gacantiisa ku koriyo oo boqortooyada uu ku noolaado qasriga madaxtooyada nabi Muuse calayhi salaam waa dhashay walaalkii Haaruun ayaa sanad ka weynaa taariikh badan ayaa Ilaahay quraanka kaga warramay qisooyin fara badan nimanka reer bani Israa'iil wuxuu Ilaahay amray in cabiidnimada ay ku jiraan iyo adoonnimada la adoonsanayo in markaa wax weeyaan laga xoreeyo oo Fircoon uu adoonnimada iyo dhibta uu ka daayo reer bani Israa'iil ilaahayna uu ka baqo ilaahay uu rumeeyo laakiin Fircoon waa diiday reer bani Israa'iil ayagu
intii aqbashay ama nebi muuse calayhi salaam rasuulnimo u aqbashay waxa kaloo jiray kuwa aan aqbalin oo iyagu kufaar ahaa oo la socday fircoon waxaa ka mid ah qaaruun ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim qaaruun nebi muuse ilmaadeer bay ahaayeen haddana muu yeelin diintii nebi muuse calayhi salaam waa la dagaalamay oo kasoo horjeeday kuwii haddaba raacay qaar badan oo ka mid a ayaa noqday faasiqiin in yar oo ilaahay uu soocday ama ilaahay uu doortay mooyaane intoodii badnayd nebi muuse raacay faasiqiin bay ahaayeen sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay wakathiiru minhum faasiquun qaar badan oo yahuudda ka mid a waa faasiqiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu badbaadiyey reer bani israa'iil wuxuu ka badbaadiyey awooddii fircoonna ilaahay badii buu ku qarqiyey reer bani israa'iilna ilaahay badii waa dhaafiyey inta la tusay mucjisadii ugu weyneyd ee reer bani israa'iil ay arkaan oo badda oo laba qaybood inta kala noqotay laba buurood wadda markaa ka samaysantay waddadaas ayay mareen ay ka gudbeen fircoon iyo tolkiina iyaguna way soo galeen oo gudahay u soo galeen deetana biyihii baa ilaahay halkoodii ku soo celiyey sidaas ayaa lagu halaagay fircoon iyo markaa askartiisii waxaa badbaaday reer bani israa'iil iyo nebigii la socday ee ahaa nebi muuse calayhi salaam maxaa dhacay haddaba halkaa markaa ay badbaadeen ilaahay wuxuu qur-aanka inooga warramay isla markay badda saa uga gudbeen in yahuuddii reer bani israa'iil ay nebi muuse ka dalbadeen inay asnaam iyo sanamyo caabudaan war ilaahay baa iminka ku badbaadiyey mucjisadii ugu weyneyd baad aragtay fircoon oo intaas sannadoodku addoonsanaya carruurtaada leynayay ayaad iminka la dilay oo indhaha aad saartay meydkiisii intaad rumaysan weyday ayuu ilaahay subxaana wa tacaala badda ka soo saaray alyawma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya ilaahay jidhkiisii badbaadiyey oo baddii ka soo saaray si ay reer bani israa'iil ugu qancaan geerida ku timi markaa fircoon calaa kulli xaal ilaahay wuxuu uhi wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra waxaanu dhaafinay reer bani israa'iil baddii bay ka gudbeen maxaa dhacay markaa waxay u yimaadeen qoom markaa ku ictikaafaya asnaam faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qoom sanam iyo caabudaya oo ku dul ictikaafiya ku nagaaday halkaa ayay arkeen deetana nebi muuse waxay ku dhaheen qaaluu jacal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaah noo samee sida ay u leeyihiin iyaguba ilaahyada iminkaa ilaahay badbaadiyey iminkaa ilaahay mucjisadii ugu weynaduu tusay haddana waxay rabaan inay ilaahay shirki iyo kufri ay kula kacaan nebi muuse waa ka waaniyey ittaqullah war ilaahay ka cabsada kuwan waxay samaynayaan waxa weeye waa kufri iyo shirki iyo gaalnimo wey maca daalika haddana quluubtooda waxa ku jiray sanamka inay caabudaan oo ilaahay wuxuu wa ushribuu fii quluubihim alcijla dibigii ay caabudeen ayaa qalbigooda la moodaa in lagu shubay goormay dibiga caabudeen markii ay baddii ka soo gudbeen ilaan waxa weeyaan qoom dhan iyo dad badan bay ahaayeen ilaahay wuxuu doonay inuu kitaab ay isku kala xukumaan inuu ilaahay u keeno jalla wacala kitaabkii towraad ee sharafta lahaa ayaa nebi muuse lagu soo dejiyey 40 maalmood buu maqnaa 40 maalmood buurta jabalutuur ayuu joogay halkaas ayuu ku soomanaa maalintii 40 maalmood oo dhan ilaahayna kitaabkii looxa towraad ahaa buu soo dhiibay nebi muuse 40 maalmood reer bani israa'iil waxaa lagaga tegey nebi haaruun oo nebi muuse walaal ahaayeen 40 maalmood may samrin manay adkaysanin kufrigii iyo gaalnimadii bay ku dhaceen nin la odhan jiray saamiri ayaa u alifay sanam intuu dahabkii ka soo ururiyay ayuu sac u ekeysiyey ama dibi u ekeysiyey deetana wuxuu yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi afalaa yarawna an laa yarjicu ilayhim qawlan miyayna arkayn baa ilaahay inaanu hadal ku soo celinaynin oo aanu dhib iyo dheef midna u haynin war caqligood waxaa ku aaday sanamkaa uu dahabka ka sameeyey oo codkas dibigoo kale leh lahu khuwaar codkii khuwaarkii iyo codkii maaragtay lagu yaqaanay markaa looda oo kale ayuu u ciyayaa markaasuu yidhi kani waa ilaahiinii iyo ilaahii muusena waa ilaah nebi haaruun calayhi salaam intaa waa wacdinayay walaqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qowmi inamaa futintum bihi wa ina rabbakum arraxmaanu fattabicuunii waatiicuu amri haaruun baa hadda ka hor la hadlayay 40 cashay dibiga caabudayeen war waa laydin fitneeyey rabbigiin waa allah oo ilaahay ka cabsada oo ay adeeca ayuu lahaa nebi haaruun bale waxay ku dhowaadeen inay dilaan oo sidii uu u wacdinayay inay dilaan ayay ku dhowaadeen subxaan allah
nebi muuse calayhi salaam ayaa ilaahay u waxyooday in qoomkiisii ama tolkiisii la fitneeyey oo uu fitneeyey ninka la dhado saamiri deetana waa soo noqday nebi muuse isagoo aada u cadhaysan farajaca muusa ilaa qowmihi khadbaan aasifa isagoo aada u cadhaysan oo ka xun ficilka foosha xun le ay ku kaceen ayay markaa uu soo laabtay 40 maalmood ayay samri waayeen oo ay kufri iyo gaalnimo tii ugu darneed ay ku dhaceen markii la yidhi maxaad sanamka u caabidina waxay dhaheen madaxdii ayaad noogu yeedhay madaxdana saamiri baa ka mid ahaa saamiri baan sidaa ku adeecnay bale markii la yidhi intii caabuday sanamkaas ka dhex baxa dadka aan caabudin way diideen marka ilaahay waa kala saaray meel webi ah ayaa biyo laga cabay culimada qaar waxay dhaheen wejigoodiibaa jaallo noqday oo dadkii way ka duwanaadeen deetana waa la soocay qolada kalena waxay dhaheen markay biyihii cabbeen baa afkooda dhoobo ku soo hadhay deetana dadkii bay ka duwanaadeen oo calaamad lagu gartay noqotay intii dibiga caabuday xukunkoodu ilaahay wuxuu ka dhigay dil in la dilo saamirina isna ciqaab kale ayaa ilaahay ku ciqaabay inna laka fi lxayaati an taquula laa misaas nolosha adduunyada cidi ku taaban mayso oo meel kastaad ka qaylinaysa waxaad dhahaysaa hay taabanina oo haddii la taabto miyuu gubanaya miyuu qarxaya miyuu isku qurmaya allahu aclam nolosha adduunyada bani aadam taaban maayo aakhirana maalin ayaad leedahay maalinta aakhira la dhahdo oo ilaahay kula xisaabtami doono aayaadka qur-aanka saasay inoo sheegayaan intii dibiga caabuday ee shirkiga ku dhacday ayagoo mucjiso kasta arkay oo fircoon ilaahay kasoo badbaadiyey dil buu noqday xukunkoodii waana la dilay 70,000 ayaa maalin la dilay maalintii wuxuu tagtay 70,000 kale la dilay kabacdi wuxuu nabi muuse doonay si uu markaa dilka faraha badan leh ee reer bani israa'iil ku socda inuu ilaahay ka khafiifiyo subxaanallahi dilka iyo ciqaabka intaa leeg wuxuu ka soo dhex saartay 70 wadaada ahaa واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا 70 ayuu ka dhex doortay reer bani israa'iil oo kuwii ugu wanaagsanaa si ay ilaahay u baryaan oo buurta jabal tuur intay tagaan ilaahay u baryaan inuu ilaahay dhibta iyo ciqaabka ilaahay ka khafiifiyo oo ka yareeyo jalla wa ala markii 70kii ay tageen buurta jabal tuur oo ay arkeen nabi muuse oo ilaahay si toos ah ula hadlaya وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه baa toos ula hadli jiray أي واحد لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كما رمين النبا إلا آد مركا أن أرقنو ربك يوسي توسا آد نوتست ربك موسو تتنى إلهي سبحانه وتعالى كوانا ولا يي ووحو إلهي وصدر الصاعقة إيا الضنب أيا صمد إلهي كياني يسوغو ميدوميتك كلا أركيا أيا نفتو كبحدي وساسي كل انتين تضباتنكي نبي موسى كلي يبا ميشي استاغي ومركا تضباتنكي وذات سنة يوفي عناه ربني إسرائيل هكذا كل انتين way kelmad kufriya iyo gaalnimo ah bay ku hadleen iyaga laftigooda subxaanallah ilaahay baynu ka magan galnay ilaahay buu markaa bariyay in hiya ilaa fitnatuka tudillu biha man tashaa ilaahay buu bari ilaahu fitnadaadii bay dadkaad ku kala saaris ilaahu afatuhlikuna bima facala sufahaa ilaahu ma waxaad noo halaagaysaa maangaabyadayadu wixii ay sameeyeen iyo ficladii foosha xumaa ilaahay waa ka aqbalay oo 70kii ba ilaahay dib u soo nooleeyay thumma ba'athnaakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkuruun sad ilaahay ugu mahad naqdaan awgeed ay ilaahay 70kii dib u nooleeyay markaasay 70kii dib u soo noqdeen kitaabkii tawraad baa la yiri qaata diiday reer bani israa'iil waa niman madaxadayga lagu yaqaaniyo canaadka ayaga ayaa adduunka ugu haysta diiday kitaabkii ilaahay ee tawraad ahaa markay diideen أي إلهي سبحانه وتعالى بورتي جبل طور بينتو قاضي أو سيدة ضرورة دكذا كأكاني وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة مركان فوتشنا بورتي رمين إيه أن دكذا كسرنا سيدي مركان ضرورة هذا ضرورة أيوة كسر رئيس وكله أي مركان وكسر رئيس وليدو خذوا ما آتيناكم بقوة قصب يحوك قاتمان كتاب إلهي ويحرر بني إسرائيل إلا العقاب ولتمو وحويان ما أقبلان شرع الدينيد ما أقبلان كتاب إلهي ما أقبلان دين ما أقبلان وحوي قعنبرة أو وحلقة شقية مويانة سكلة وحبكم مقاطعان مركي أركان إن بورتكو صدع يسيدهن إمي كانوا قاضاننا كتاب إلهي ويسو السعودية ريبان إسرائيل نبي موسى هقاميني دعدو ينفرب بدنا يا دعي نبي موسى وحوري dhulkii aabayaashin ay ku aasnaayeen waa nabi ibraahim iyo nabi isxaaq iyo nabi yacquub iyo markaa waxa weeyaan ambiyadii reer bani israa'iil aabayaashin ay ku aasnaayeen dhulka falastiin dhulkaas ilaahay baa idin qoray al-ard allati kataba Allahu lakum dhulkii ilaahay idin qoray kaalayo taga
marka dhulka waxa haysatay xilliga jabaabira niman xoog waaweyn baa haystay dawlad xoog weyn baa haystay oo rag waaweyn baa haystay oo aan reer bani Israa'iil iska celin kareen ama ay ka baqayeen marka waxay dhaheen qaaluu inna lan nadkhulaha fiiha geli mayna bay dhaheen qaaluu inna lan nadkhulaha ma daamu fiiha waxay dhaheen inta ay ku jiraan nimanka jabaabirada ahi waxa weeye geli mayno markay ka soo baxaan ayaanu geli doonaa bay dhaheen dabadeedna nebi muuse wuxuu diray 10 nin oo xul ah oo markaa sahan ah oo bal soo eega reer nimanka jabaabirada xooga waaweyn 10 nin baa tagay marka 10 nin waxay arkeen waxyaalo mucjiso ah bay arkeen rag aad u waaweyn oo la moodo qowmo caad oo kale inay yihiin kutubta tafaasiirta waxyaalo fara badan ayaa ku yaala waxa ku yaala in uu nin kaliya uu 10 nin ba gacanta inta ku qaatay jeebada ku ritay subxaanallah waxyaalo cajaa'ib gaabay kamid ninkii cuuj baa la dhihi jiray ninka jeebada ku ritay gabigoodiiba marba nimankiina baa rabay in la dagaalantaan markii la sii daayay ay soo noqdeen bay dhaheen waryaade reer bani Israa'iil weyn ognahay waa dad fulay ah haddii aynu sheegno wixii aynu aragnay dagaalami maayeen magaalada geli maayaane aynu qarino markii 10 nin ay go'aan ka qaateen oo ay reer bani Israa'iil u tageen 10 nin 8 kamid ah baa warkii ka shifay oo fashiliyay oo warramay sirti oo yiri nimankan aragnay haddaad ogaan lahaydeen 2 nin ayaa markaa soo hadhay labada nin oo lagu sheegay mid inuu yahay Kaalib ninkii la dhihi jiray iyo ninkii la oran jiray mu'min oo ali fir'aun ninkii reer fir'aun ka soo islaamay ee suuratu Ghaafir ay ka warramayso labada nin oo 2 nin oo wanaagsan ahaa ayay markaa iyaga baraarujiyay oo iyagu aan sirti ka shufin qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim 2 nin oo ilaahay ka cabsanayo ilaahay korkooda u nimcay ayay waxay ku dhaheen oo ay dhaheen udkhulu alayhim albaab war idinku albaabka gala marka dhulkaasi waa dhulka Falastiin ma Qudus bay ahayd misaga magaalada Hayfa ahayd Allahu a'lam dhulka Falastiin gala Qudus ama Baytul Maqdis ka gala waa dhulka ilaahay idin qoray idinkii aabbayashina ku noolaydeen subxaanallah way diideen waxay dhaheen qaalu lan nadkhulaha abadan ma daamu fiha weliga yageli mayno idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaaciduun adiga iyo rabbigaagu israaca muuse oo dagaalama halkan sii fadhiisanayna wadi daawanayna sida tiyaatarkeena ina daawanayaan ilaahay maalinta hadaba dhulka Falastiin waa ka xarimay nimanka yahuudeed قال إنها محرمة عليهم حرام بيكتها بالله اليهود حرام بيكتها يجا قلواي وكررت ويري هذه الرب قال موسى وقال إلهي وكحرم دولك بركيسنا فلسطين سبحان الله مركز إلهي وحكول حكوميتيه أفرتن سنضين يتيه قلان 40 سنة يتيهون في الأرض أفرتن سنضود أيتيها قليان وحبها كم رجولنا هو كحمان فاسقين إلهي ساسكور النبي موسى عليه السلام marka dhulka saxaraha Sinai ku yaala imika Masar ayay ku wareegayaan subaxii meesha ka kacaan bay habeenkii ku soo noqdaan jidkii inay helaan baa Ilaahay u diiday muddo 40 sanadooda 40 ka sanadood dhulku waa dhul saxara ah biyo male baad male wax la cuno male meel loo hoyda male Ilaahay hadaba xilliga naxariistiisii buu siiyay subhanahu wa ta'ala biyihi waxa la yiri نبي موسى انتو دغخ قادو انتو وشيس قبطو دول ku dhufto dhagaxi way istasqa Musa liqawmihi faqul nadrib bi'asaka al-hajara dabadeedna nabi Muuse markay roob doonay dalbadeen iyo biyo ushiisi buu dhagaxi ku dhuftay deetana fanfajarat minhu 12 aynat 12 iloodo biyaba ka soo burqaday oo 12 kii qabiil ay ka koobnaayeen qolo walba ili biyo ah ay heshay cuntadii ay cunayeen Ilaahay jannadu uga soo diray manni wa salwa oo ah hilib shimbireed duban iyo xalwadi iyo macmacaankeedii wada socda marka Ilaahay uu imtixaan biyo waa hesheen oo dhagaxaas ayaa Ilaahay biyo ka soo saaray waa dhagaxa didibta ah ayaa Ilaahay biyo ka soo saaray subhanahu wa ta'ala oo qabiil walba uu ka cabaya ilo gaara waa subhanallahi waa mucjisoyinka Ilaahay manni wasalwana walasi hilib shimbireed duban iyo macmacaankii jannada ka yimid oo cuntadii ah imtixaankoodu wuxuu ahaa markay cuntada cunaan ee ay ka dhargaan in aanay waxna kaydsanin waxna qaadanin halkaas ay kaga tagayaan marka way sabri waayeen oo kuwii lahaa wayd qultum ya Musa
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم إلهي وحوري مركي أي دهين cuntadii wanaagsanayd kuma sabrayno mana rabno hal cunto kaliya waxaanu ilaahaaga noo bariyo waxaanu rabnaa inuu ilaahaagu noo soo saaro basal iyo toon iyo cadas iyo caleen yar iyo yaro gidira markaasaa nabi muuse wuxuu war ma cuntadii wanaagsanayd baad ku doorbidaysaan cuntadan liidata ee hooseysa magaalada ama misr ku dega halkaa ku hoobta halkaas ka heli doontaan waxa rabtaan subxaanallah marka way iska rafciyeen cuntadii wanaagsanida almanna wasalwa way iska rafciyeen ilaahina wuxuu waduribat alayhim adillatu walmaskanatu wabaa'u bighadab min Allah ilaahay wuxuu waxa dhakadooda fuushay dulinimo iyo hoojin la hoojinaya dadka reer bani Israa'iil yahuuda loo yaqaano iyo marka waxa weey waduribat alayhim adillatu walmaskanatu wabaa'u bighadab min Allah ara Allahna way la noqdeen ilaahay wax wanaagsan ku siiyay ayaad cuntadii wanaagsaninta diiday bad wax kale dooratay ilaahay oo ku wanaajiyo heer sare ku gaadhsiyo nabi cidii hogaamiyahaaga mar walba nabi kaaga dhigi jirtay ayaad kufriyo shirki ku dhacay ilaahay cara alle la noqdeen dalika bi annahum kanu yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq nabiyada si xaq darraba u diri jireen reer bani Israa'iil waan ka warrami doonaa insha Allah waxa kale oo xilliga marka maadaama dhulku dhul saxaro kulul ahaa ilaahay uu ku hadiyay daruura wadallalna alaykum al-ghamama daruuraha ilaahay ku hadin jiray jalla wa ala waxa soo nicmo ilaahay uu siiyay hadana fisqigoodu waa badnaa waxa yaala badan ayaa dhacay intii lagu jiray 40 ka sanadada tiiha waxa kamid ah qisadii baqaratu bani Israa'iil saciib reer bani Israa'iil ee lagu kari waayay inay sac gowracaan oo ay marba ilaahay ku soo hadal celiyaan oo mar walba adab darrada iyo akhlaaq xumadii ka xumaatay oo ay dhaheen udcuu rabbiga noo bari muusow ila rabbigaaga noo bari oran maayeen rabbigeeni noo bari mar walba dhaqanka yahuud waa sida nabi muuse markii la hadli jireen waxa uu dhigay rabbigaaga noo bari garan mayna sac ku yahay hada sac kaliya gowraca leedo waxa soo ida loo meesha joogta mid kamid ah haday gowracaan xukunku waa ka degi laha way isku adkeeyeen ilaahina waa ku adkeeyay ilaahi subhanahu wa ta'ala waa ki qisadii baqarada inooga warramay suuratul baqara inooga warramay way qisas fara badan ayaa xilliga dhacay muddada 40ka sanadood ee tiiha ayaa dhammaan waxa dhintay dadkii arkay fircoon oo dhan halkaas ku dhinteen xitaa nabi muuse iyo nabi haaruun zamanka intii lagu jiray bay dhinteen dhalinyaradii markaa soo kacday aan fircoon arkin ayaa waxa hogaamiyay yuushac ibn nuun oo ahaa fataa muusa wiilkii nabi muuse u adeegi jiray alayhi salaam oo nabi ilaahay uu ka dhigay ayaa dhalinyaradii reer bani Israa'iil soo kacday ee aan fircoon arkin hogaamiyay magaaladii la lahaa gala ee dagaalamana way galeen markii ay galeen oo ay qabsadeen ilaahay wuxuu yiri magaalada markaad galeysaan waxaad ku gashaan idinkoo sujuudsan ilaahu dambiga noo dhaafna dhaha wixii aad dambi sameyn jirteen adinkii aabayaashiisoo garan maysaan ee kufri iyo shirki iyo canaadnimo iyo madaxadeeg iyo kitaabka Alleena diidaan iyo inaad mar walba majara habaabisaan xaqa iyo marka aad xaqa marka waxa weeyaan talbiis ku sameysaan oo aad huud saartaan oo maradha ka saartaan oo aad qarisaan war waxa soo ilaahay haydi ka dhaafee sujuuda marka magaalada albaabkeeda galeysaan oo ilaahayna bari وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين مركز الباب كجليسان سجودا وواحدنا حطة إله نودم بدافنها هذا ساتي سميسان تنبقين على يدين دافيا كمحسن كان إله هو وزيادين يا خير كي وناك ما ينسميه بكلتهم مايا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم هذا الكل يقول ميدانا هين بيبدلين اريا هاي لا هو نودم بداف حطه اريا هاي لا هو نودم بداف ويبدلنا حنظله bay ka dhigteen subxaan allah halkii la yiri sujuud ku galana bari iyo dabadabay ku galan iyagoo dabada cirka u taagayo oo dabada ku sii jeedinaya albaabkii lahaa sujuud ku gala ay dabadood iyo badidooda ku sii jeediyeen kibir iyo canaadnimo ku jirta awgeed la ilaaha illa allah wa ilaahi subhanahu wa ta'ala si uga kufrinaya oo xukunka ilaahay ay isagu diidsan ilaahay markaa rijsi iyo markaa ciqaab iyo cadho allu ilaahay dhakada kaga keenay samaawaadka uu kaga keenay subxaan allah reer bani Israa'iil
sidaas ayay ahaayeen oo quraanka ilaahay nooga warramay qofka raba inuu suuratul baqara raba inuu ogaado reer bani israa'iil cid yihiin suuratul baqara baa kala dhigtay yahuudaasi ficilada ay leeyihiin jireen wal ciyaadu billah waa sii socotay taariikhdu waa sii socotay nebiyo badan baa ilaahay ka soo saari jiray reer bani israa'iil mar kasto ay kibraan oo waashaan oo diinta ilaahay diidaan oo xaqa diidaan ilaahay wuxuu ku salidi jiray cadow ku xoog weyn oo ka daran ayuu ku salidi jiray waxa la soo gaaray xilligii markaa nin boqor ah oo ka xoog weyni oo markaa dhulkoodii burburiyay kufrigii iyo markaa fisqigii iyo xumaantii ay sameyn jireen awgeed dabadeedna nebi ka mid ah nebiyadoodii ayay ka dalbadeen dagaal inay dagaalamaan oo naftooda ay difaacaan caruurtooda ay markaa ay difaacaan oo diinta ilaahay iyo jidka ilaahay u diriraan oo dagaalamaan markaas wuxuu bal ka warrama haddii ilaahay idinku waajibiyo dagaalka ma dagaalami doontaan maxaanu dagaalami weynaba dheh waqad ukhrijnaa min diyaarina wa abnaa'ina guryahaygii baan laga soo saaray ubadkaygii baan loo diiday caruurtooda waa la adoonsaday subxaanallah dabadeedna nebigoodaas waqaala lahum nabiyuhum nebigoodaas oo lagu tilmaamay inuu ah nebi shamuel ama nebi shamcoon calayhi salaam ayaa markaa wuxuu u waxyooday loo soo waxyooday in boqor loo yeeli doono boqorkaasina wuxuu noqday taaluut ninkii la dhihi jiray ee ninka wanaagsan ahaa calayhi salaam taaluut way diideen marka anna yakunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal sidee buu ninkani noo xukumi karayaa aan maal iyo xoolana haysanin wax alaal wuxuu haystaana ma jirto annagaa ka mudan oo ka xaqnimo leh inaanu boqorro noqono marka reer bani israa'iil qabaa'ilada 12 ah qabiilna nebiyada ilaahay ka soo saari jiray subxaanahu wa tacaala qabiilna wuxuu ka soo saari jiray boqorrada oo qola boqorro noqon jirtay ninkan daaluud qabiilkii boqorrada noqon jirayna maaha qabyaaladana yahuudda loogu yimaada marka qabyaalad ahaan bay u diideen iyo lacag la'aan iyo faqri bay ku tuumeen nin lacag haystana ma annaga ka mudan bay dhaheen deetana wuxuu dhahay war bal ka warrama haddii uu kitaabkii tawraad ee laydinka xadayd ilaashan weydeen uu idiin soo celiyo taabuutkii sanduuqa isagoo ku jira fiihi sakiinatu min rabbikum wa baqiyatu mima taraka aalu muusa wa aalu haaruuna taxmiluhu almalaa'ika oo ay ku jiraan raadadkii ay ka tageen nebi muuse iyo nebi haaruun iyo markaa kitaabkii tawraad oo naxariis iyo nebi xasilooni idin ah hadduu idiin soo celiyo isaga sababtiisa ilaahay ku soo celiyo ma aqbalaysaan haabay dhaheen dabadeedna ilaahay subxaana watacaala malaa'ig baa soo qaaday kitaabkii sanduuqii oo kitaabka tawraad ku jiro oshii nebi muuse ku jirto maryal nebi haaruun lahaa uu ku jiro oo ahaa raadadkii ay nebiyadoodu ka tageen calayhim wasalaam dabadeedna waxay dhaheen boqor buu noo noqonayaa way aqbaleen marka deetana daaluud waa kii imtixaamay waa kii yidhi ninna gurigiisu dhismo ku socdo aan weli u dhammaystirmin iraaci maayo imtixaano badan buu ka qaaday webigaas markii uu ka gudbayay webiga urdun wuxuu yidhi faman shariba qofkii ka caba biyaha ka caba falaysa minii aniga iga mid maha kaas waman lam yashrabhu waa qofka aan biyaha cabin ilaa man iqtarafa ghurfatan biyadihi qofkii maaragtay hal marun biyo afka saa u geliya mooyaane qofka aan ka cabin kaasu baa aniga iga mid ah oo iraacay ilaahay wuxuu yidhi fasharibuu minhu ilaa qaliilan minhu in yar mooyaane intoodii badneed biyihii bay cabbeen waa nin soomi kari waaye hal maalin ma jihaad iyo dagaal buu geli karaya waa maya wey intoodii badnayd waa laga tegey dhowr boqoloo nin oo la yidhi waxay ahayd tiradoodu tiradii saxaabadii ka qayb gashay dagaalkii beder oo 315 nin ahayd ayaa markaa soo hadhay oo raacay daaluut marka waxay ka soo horjeedo oo la dagaalamayay jaaluut ninkii isaguna feedhaa waaweynaa xoogga weynaa ee markaa hogaaminayay dadkii haystay baytulmaqdis dagaal baa dhex maray jaaluut waxa u soo baxay inan yar oo indho buluuga leh oo aad u yar ayaa yidhi anaa la dagaalamaya hubna ma sito seef ma sito waranna ma sito fallaadhi la tuuri jiray leeb iyo qaasa midna ma sito wuxuu gacanta ku sitaa waraf iyo dhagaxan la tuuro waraf iyo dhagax waraf iyo shimbiro war isuma hayaan soo maa warafkaasuu sitaa waadhigaas ayuu raaci jiray nin yaroo dhallinyaraabu inan yar buu ahaa subxaan allah war waa jaaluut ninkan la dagaalam walow kaana jaaluudna ha noqdayse anaa u baxaya buhi wuu baxayo dhagaxiisii unbuu saa wadfiyo halkaa qortunbuu kaga dhufto madaxo qambelef waaba dhintayba inankaa yar wuxuu ahaa daawuud calayhi salaam nebi daawuud buu ahaa faqatala daawuudu jaaluuta wa aataahu allahu lmulka markaasaa daawuud dilay jaaluut oo ilaahay uu siiyo boqortooyadii iyo nebinimadii iyo xikmaddii markaasay reer bani israa'iil oo dhan jeclaadeen nebi daawuud oo boqorna ka dhigteen nebina ilaahay ka yeelay subxaanahu wa tacaala
isaga iyo markaa wiilkiisii nebiyullaahi sulaymaan labada cahdi ama labada waqti ayay reer bani israa'iil weligoodba horumar ay gaadheen taariikhdooda marka la eegayo oo aanay khilaaf jirin intii uu nebi daawud iyo nebi sulaymaan uu markaa waxa weeyaan uu xukumay waana fatra qaliila waa muddo aad u yar weeye xilligaasina marka la eegayo taariikhda bani aadam markii nebi sulaymaan uu dhintay iyo boqortooyadiisii weyneed ilaahay quraanka inooga warramay markii uu dhintay ka bacdi waxa dhacday reer bani israa'iil inay iskhilaafaan sidii lagu yaqaanay oo ay barhkoodba barhka kala dilaan subxaan allah oo ay dhiigooda daadiyaan ilaahay baa yidhi reer bani israa'iil isagoo inooga warramaya dhaqamadooda ilaahay wuxuu ka ballan qaaday inaanay dhiigooda daadinin guryahoodana iska saarin laakiinse maxay sameeyeen intiiba wasan guryahana way iska saareen dhiigoodiina way daadiyeen marka mid ayaga ka mida la qafaashana maal iyo lacag bay ka bixin jireen si markaa ay u soo baxdo saldanada nimanka salaadiinta iyo cuqaash iyo malaaqyada iyo markaa ugaasyada iyo garaadada iyo kaaba qabiilada reer yahuudeed madaxdoodu ay u yeeshaan sharaf ilaahay dartii kama aha waxay ka tahay si loo sheego loo dhaho sultaankii caaqilkii hebel iyo garaad hebel ayaa lacagtii bixiyay oo soo furtay ninka reer bani israa'iil iyo yahuuda markaas ilaahay wuxuu leeyahay afatu'minuuna bi ba'd al-kitaabi wa takfuruuna bi ba'd war kitaabka ilaahay ma qayb ayaad rumaynaysaan qaybna miyaad ka gaaloobaysaan waxa la yidhi haysdilina waa isdilaysaan dhiiggiina hadaadina waa isdaadinaysaan guryihiina iska saarna waa iska saaraysaan haddana marka aad saartaan ee mid idinkeedii ka mida la adoonsaday la qafaasho ayaad haddana maal iyo lacag ka bixinaysaan war caqligeenu siduu u shaqaynaya waa sifaadka yahuuda weeye nacuudu billah inay kitaabka ilaahay qaybna rumeeyaan qaybna ka tagaan subxaan allah oo ka gaaloobaan taariikhdii way sii socotay waxaa la soo gaadhay zamankii markaa nebi sulaymaan wuxuu dhisay haykal sulaymaan haykalkaasi waa guri weyn oo gurigan masjidka baytulmaqdes ama haykalu sulaymaan bay u yaqaanaan haykalkii nebi sulaymaan calayhi salaam meeshuu ku yaalay lama garanayo halkii laga dhisay lama garanayo yahuuddu maanta waxay dhahaan halka uu ka dhisan yahay masaajidka qudus ayaa ah haykalu sulaymaan oo ah dhulkii meeshii sulaymaan uu guriga ka dhisay oo ah masaajidka qudus halkaana waxaan rabnaa inaynu dumino oo aanu ka dhisano haykalkayagii si uu noogu yimaado masiixaasina waa masiixu dajaal ay sugayaan waayo masiixa kutubta lagu sheegay inuu imanayo wuxuu ahaa masiix ciisa ibnu maryam nebi ciise ayuu ahaa nebi ciisena may rumaynina waxa dhig waa beenaale waana welidusinay ku tilmaameen nacuudu billah caydan ambiyada ay caayaan waan ka warrami doonaa halkaa marka nebi ciise oo masiix ahaa markay diideen oo ay ka kufriyeen oo ay dhaheen ma aha nebigii iyo masiixii aanu sugaynay waxay rabaan masiix kale oo ay sugayaan masiixaasna waxa uu masiixu dajaal waa dajaal cawara oo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda u horeysay raacaysa waxa weeye 70000 yahuudiyan min yahuudi asfahan 70000 oo yahuuda oo degan markaa magaalada asfahan ee Iran ku taala waxana cajaayib yahuudu Iran bay degantay gaar ahaan magaalada asfahan bay ka degantay subxaan allah sadaqa rasuulullah rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam runlow weeye ورنلوه الرميسانية ويا صلوات الله والسلام على صادق المصدوق سيدو الشيغي أي وحل بويا الله يهود واحد كدكتا إيران بقالات أصفهان أي كدكت سبحان الله على كل حال نبي زكريا ويدلين نبي يحيى ويدلين نبي عيسى تاسو شرب اسكو داينين الدلان بلا واحد شيكتين الدلين سيدا بنتو دي كدب كود سيا وعرق قليا دادك إسلام كي مسلمين تا يدادك الروميين نبي عيسى وأكوين لها إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أنك دلني مسيحي عيسى إنا مريم رسول الله رسول كإلهي مروا ما يسلم منا من سنين عيسى رسول كإلهي لكن مركا عليهم وين شيغنا يالوانو دلني واحد يقول رسول كإلهي عيسى أنك دلني سيأيو عرق قليان تدك إسلام كي مسلمين تهقوا عريسيان سبحان الله نبي عيسى ويسكت ديانين يدلان لكن ما يدلين ويشاكتانين يدلين عقل الله وياشا كريستان كان رميستي ورده مسيحي يهودا ديشي من يدلين وكور لها صليب كن نقول انت إلهي يجي حسبنا الله ونعم الوكيل يهودي حلي النبي قوال السوق قال وحي دقناين مقالة بالدينة وحي سويدين لما الدينة ما حي كسو دونين يهود الدقنين طبعا waxay ka soo dooneen waxa kutubtooda ku taala iyo aatharta iska soo dhaxleen inuu soo bixi doono nabigii ugu dambeeyay markaan raadicayna nabigii ugu dambeeyay ayaa u yimaadeen magaalada Madiina
dhulka barakaysan Filistiin waa laga soo eriyay oo Roomaankii baa qabsaday Filistiin iyo dhulka Shaam oo dhan waa laga soo eriyay Madiina yimaadeen si ay nabiga u dambeeyay oo rumeeyaan nabigiina ma rumaynin markii uu soo baxay bale wala dagaalameen wayna la culaytameen qabayladii badneed ee Yahuud deganeed magaalada Madiina reer Bani Qaynuqaac reer Bani Nadiir iyo reer Bani Qurayda iyo reer Khaybar kulligood way wada beeniyeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayagoo oo garanaya alladina aataynahum alkitaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum kuwa kitaabka la siiyay Yahuudiya Kiristaanka waxay u garanayaan nabigeena Muhammad sida ubadkoodii iyo caruurtay dhaleen u yaqaanaan ayay u garanayaan nabi Muhammad inuu nabi yahay oo rasuul xaq Ilaahay uu ka yimi uu yahay way garanayaan waynoogin waliba khaasatan Yahuudu maca dalika hadana way la dagaalamaysaa tusaalahan ayaynu ku soo gabagabaynaa waxa jiray nin Yahuudeed oo la dhigay Xuyay ibn Akhtab oo xaaskii nabiga loo yaqaanay Safiya bint Xuyay ibn Akhtab dhalay ninkaasi waxa dhacday markii uu soo yimi nabigeenu magaalada Madiina isaga iyo walaalkii Yaasir ila dhijiro filaya ayaa soo baxay waxa ka waramaysa Safiya xaaskii nabiga ee Safiya waxay tiri aabahay marka waan yaraabay tiro marka aabahay arkoon soo socda waan ka hor carari jiro way qaadi jiro laabtii gelin jiro maalintii nabigu magaalada Madiina uu yimi ayaa ka hor cararabay tiri anigii ana ka hor cararabay tiri aabahay adeerkii gig ferd yalaad iyo waxbay ku dhuftay naanaga baydhbay subhanallah way istaageen oo way isfaraysteen kaasuu wuxuu yiri mid baa yiri huwa war isagu ma isagiiba kaasuu Xuyay ibn Akhtab baa yiri wallahi huwa isagu waa isagii